waxaa noo sii socda xalintii lix geeslaha Rubik's. waxaan helnay calaamadii isku darka ee qaybtii kore. waxaana noo muuqata in midabadii aysan isku wada aadanayn buluuga dhanka haddaan u baxano iyo qaybtan ah. laakiin hadda waxaan haysanaa mar walba ugu yaraan laba ayaa isugu kala aadan. labada isugu aadan hadda waxay yihiin qaybtan liimiga iyo tan caddaanka ah. haddii ay laba yihiin macnaa dhankaas waa inaan gelinaa mid dhankaas marna. mar walba midaan dhankaas marnaynaa, mid intay soo mari doonta ama dhanka midig. hadda waxaan haysanaa midkan liimiga oo midig soo maraayo iyo kii caddaanka ah marin doona qaybtaas dhabarka ah. markaan qaybtan sameynay kadib waxaan sameynaynaa sharcigan soo socda oo ah qaybihiisii haddaan soo noqono waa midig kor, midig dabagedisan, kor, midig, kor, kor iyo midig dabagedisan, kasoo horjeedka midig. kadib waxaan wareejinaynaa hal mar. markaan wareejinay kadib waxaa noo muuqata inaan inta haysano oo ah buluugan qaybta jaalaha ah, gaduudda qaybtiisii, caddaanka iyo liimiga. afarta soo wada haynaa, qaybaha hoosena cagaarkan hore waa haysanaa, wax walba waa toosan yihiin. hadda markaan meeshaan joogno waxaa noo haray waxay yihiin afartan geesaha xiga xalintoodii. afarta geesaha xiga xalintoodii waxaan u baahannahay in aan fiirino mid walba in uu joogo meesha uu lahaa in la geliyo, maaha inuu ugu jiro sidai saxda ahayd. tusaale ahaan waxaa ka mid ah hadda waxaan haysanaa qaybtan kore waa inuu buluug noqdaa, buluug waa haysanaa. dhankan caddaan waa haysanaa geeskan, laakiin liimi inta kama haysana gaduud. shan marka wuxuu ku jiraa meel qalad ah. haddaan dhankan fiirino sidoo kaleeto jaalle iyo waxaan u baahannahay liimi, caddaan iyo liimi aan haynaa waa qalad. kan markaan fiirino sidoo kale, kan markaan fiirino waa saxan yahay. wuxuu ku saxan yahay kasi karnaa waa jaalle intuu leeyahay, gaduud intuu leeyahay, buluugna intuu leeyahay. markan wuxuu ku jiraa meeshii laga rabay inuu ku jiro, laakiin uguma jiro sidii la rabay. booskan uu leeyahay boos ahaan, laakiin sidii la rabay uguma jiro. marka noo saxan, xabadka noo saxan iyo waxaan marsiisanaynaa dhankan gacanta midig wuuna kor xigo. hadda waxaan sameynaynaa marka waxaan isticmaalaynaa sharciyaasheena ugu dambeeyey oo aan loo baahnayn sharcigan 7 sharci ka badan ma rabno oo looma baahna inaan barano, oo asna ah sida soo socda. waa kor midig, kor kasoo horjeedkeeda, bidix kasoo horjeedkeeda, kadibna waa kor midig kasoo horjeedkeeda, kor kasoo horjeed ah iyo bidix toosan. hadda markaan kaa sameynay kadib waxaan fiirinaynaa maxaa noo hagaagay. ma wada hagaagin ayagii oo dhan, maya. kan meeshiisu kusoo noqday soo maaragtaan sidii u qaldanaa, meel sax uu joogaa laakiin si qalad ugu jiraa. marka meeshiisaan sii joogaynaa. haddaysan noo wada hagaagin mar kalaan ku celinaynaa. ugu badnaan 3 jeer aan u baahannahay kan oo ah marka kor midig, kor kasoo horjeedkeeda, bidix kasoo horjeedkeeda, kadibna waa kor midig kasoo horjeedkeeda, kor kasoo horjeed iyo bidix caadi ah. hadda markaan sameynay kan waa meeshiisu noo jooga. waxaan fiirinaynaa maxaa kaloo hagaagay. kan waa hagaagay, wuxuuna ku hagaagay isagoo meeshuu yimid iyo meesha sida saxda ugu jiraa. waa gaduudkii iyo buluug iyo caddaankii. qaybtana waa caddaan iyo liimi iyo buluug. qaybtana waa jaalle iyo buluug iyo liimi. marka loo fiiriyo meesha geesihiisii saxda ahayd uu joogaa. hadda marka waxaan fiirinaynaa midka saxan, waxaan tagaynaa midka ku xiga isaga. kan saxan hadduu inta noo jooga waxaan tagaynaa midka ku xiga, ama kan midku rab ha noqdo. kan hadda markaan tagno inta waxaa noo yaala anaga midabkii buluug ahaa. waxaan sameynaynaa sharciyadii ugu horeeyay ahaa ayaan soo baranay. sharciyadii ugu horeeyay ka mid ahaa ayaan soo baranay oo ahaa macnaha midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan. tanaan ku wadaynaa oo ah marka midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan. waa midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan. kadibna waa midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan. markii aan helno laynkan waa buluugii waa haysanaa, caddaankii inta waa ku haysanaa, liimigii inta waa ku haysanaa. qaybtan waxaan wareejinaynaa kore. hadda waxaad dareemaysaa in wax badan qasmaayaan, laakiin ha ku wareerin. wax badan baa qasmaaya, macnaha hadda ma raadin kartid. laakiin sharcigan haddaa ku socotid ilaa dhamaadka waa iskeenaysa, isku soo hagaagaysaa. haddana waxaan sameynaa markaan kan wareejino kadib waa fiirin waxaan sameynaa isla sharcigii hadda. waa isla sharcigii hadda oo ahaa marka midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan. oo 4 iswata in la kala reebaa ma aha. afarta in la kala reebaa ma iswataan. waa midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan. waa midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan. waa midig qaldan, hoos qaldan, midig saxan, hoos saxan inaan ka tagno. marka aan helnay kan inaan helnay, haddana uu noo hagaagay. waa aragtaan liimigii iyo jaallihii korna uu buluug ka yahay. waa wareejinaynaa qaybta kore keliya aan wareejinaynaa. haddana markaan inta hayna waxaan sameynaynaa iyadana sidoo kale waa midig
qaldan hoos qaldan midig saxan hoos saxan waa midig qaldan hoos qaldan midig saxan hoos saxan tamartaan waa noo sii socota lag weli maysa dhamaan waa midig qaldan hoos qaldan midig saxan hoos saxan waa midig qaldan hoos qaldan midig saxan hoos saxan hadda waa soo galay booska laga rabay wax kaloo qaldan ma jiraan waa inaan qaybtan u wareejina aan geynaa meesha laga rabay waana kaas waa nimid meesha aan u soconay ahayd inaan helno lix geeslaha rubik oo wada habaysan waana xasuustaan inuu qaldanaa haddana waa nimid meeshii aan u rabnay dabcan haddii aad kasoo iibsatay dukaanka waxaa laga yaabaa marka hore macnaha hadda waa qallan yihiin cagaga ah waa isqabshadoodii culays inuu noqdo inuusan u wareeganin waa inaa macnaha heli kartaa inuu si sahalka ugu wareeganayo waxaa macquul ah macnaha in la furi karo qaybtan in inta kashwita laga geliyo ama macalqad yar la furo waa in marka hore habee markaa habeysata kadib un fur si isugu ka qaldamin kadib waxaa marin kartaa marka subag yar basaliinta waa noocyadu waa kala duwan yihiin laakiin dee waa intooda badan basaliyaasha caruurta ama jirka xataa aan marsano waa lagu isticmaali karaa marinteeda gudaha dabcan waa inaysa meelaha banaanka xoogaa saas usoo bixin laakiin dhib weyn ay keenaysaa ma jiro haddii la tirtiro waa inaa xaashidaadii waxaad diyaaristid haddii habaysay marka waxaa jiraan hadda xabad aan u sameynay dabcan waqti ahaan kuma siinays laakiin waa in algorithmkan ama hab howl fuliska aan soo sheegnay macnaha de inuu qofkii xasuusto iyadoo luqadda ingiriiska ah ayaa isleedahay may xoogaa yar ka yara fududahay af soomaaliga maadaama aan u baran laakiin hadda waxaan go-aan ahaan ku gaaray in af soomaaligan aan ku sameeyo hadda ereyga front oo kale wejigii hore miya mise waa horay keliya invertigii oo kasoo horjeedkii ahaa macnaha dee ma dabagadis mise kasoo horjeed xoogaa yar waxyaaba noocaas waxaa jiraan ereyadii terminology ahaan ereyadii farsamada inaysan soomaaligii ku diyaarsanayn aysan noo habaysnayn lakin waxaan filayaa in qof walba oo rabay inuu bahalkan xaliyo ay u suurtagalaysa haddii waxyaaba qaladaad ka heshaan igu soo dira fariin ahaan waxaan isku dayayaa inaan intii karaankayga aan kaga jawaabo ama wixii sixitaana aan saxo dabcan qofkii speed badan raba inuu ku sameeyo waa in marka farihii dhaqaaqoodii iyo waxoodii aad u tira bataan kuma filna sidii hadda aan u sameynayna oo tartiibta ahayd tii hadda waxay ahayd qaybta waxbarashada laakiin hadda qaybta ugu dambeysa oo kale oo aan islahayn hele markaan buluuga ay joognay oo aan lahaa waa bidix macnaha hadda qaldan hoos qaldan bidix saxan hoos saxan midig saxan aan ka wadaa hoos saxan markaan saan u sameynaynay dabcan dee qaab boobsiis aan ku samayn karna macnaha dee muxuu waa jirta haddaan boobsiina meesha inay kusoo noqota laga yaabaa tan kadibna fartan hoose in lagu tuuro taa loo celiyo tan lagu tuuro macnaha waa fariireyda macnaha dee muxuu ahaa isticmaalaynaa markaan fariireyda isticmaalno waa in farti aan soo wareejino meesha keeno macnaha hadda uma baahnayn sida aragtaan hadda waa haysanaa qaybta hadda aan bedelnay waana shantii jeer oo ugu badnaydna macnaha dee muxuu ahaa waa sameynay farahan kore oo la isticmaalana waa jirtaa qaabkaas ahaan wareejinta noocaas ah haddii ay isla gacantan kalena waa la isticmaali karaa faraheedii markii bidixdii hore loo socdo kaleeto ah qaab boobsiska loo sameeyo ama dadka world recordkii ku sameeya tiradoodii aad ay u yartahay waa sidaas iyo mahadsanadiin la socodkii aada la socoteen waana aniga oo ah maxamed ibraahim mursal oo idin leh waxaa saa u aragtaan macnaha dee muxuu ahaa iftiinkii maanta jiray waqtiga aan bilaabay macnaha dee muxuu ahaa ma jiro oo qoraxdii waa ka dhacday meesha aan joogno nalkan aan isticmaalayna iftiinkiisii duubitaankiisi ma fiicna laakiin waxaan rajeynaya inaan midabadii sida u rabteen sidii loo rabay ama siday ahaayeen jaallaha caddaanka qaasatan iyo liimiga isku dhawaa inaad kala fahanteen sidaas iyo mahadsanadiin